Dolayısıyla ülkede şu an görev yapılmış firmalara var. Bu firmalarda sunmaya işte وزير كمان نتاليا وزير حاجة إيه وزارة بين الشهرين فوق أيام في العالمية كده هنا يعني سفارة الوزارة عشان safiirka dowladda Turkiga u jooga Soomaaliya Ambassador Bere Aktas ayaa booqasho ugu yimid wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya Professor Salim Caliyow Ibrow. Kulankaasna waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana ka qayb galay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Salaaxudiin Daahir Xasan iyo weliba qaar ka mid ah la taliyaasha wasiirka. Kulankaasi oo lahaa laba ujeedo oo kala ahaa soo dhaweynta iyo isbarasho iyo sidii loo sii wadi lahaa heshiisyada wax wada qabsi ee wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalalka Soomaaliya iyo Turkiga iyo weliba hay'adaha kale ee wada shaqeynta ay kala dhaxaysay. Safiirka dowladda Turkiga u jooga Soomaaliya Ambassador Albert Aktas ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta isla markaasna uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu sii wado xiriirkii kala dhaxeeyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo kuwa dhigeeda ah iyo hay'adaha kale ee dalka Turkiga. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Professor Salim Caliyow Ibrow ayaa uga mahad celiyay safiirka booqashada oo ugu yimid waxa uuna u soo bandhigay in uu safiirka sii wado xiriirka wax wada qabsi ee kala dhaxeeya dhigooda dalka Turkiga isla markaasna sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha Soomaaliyeed maadaama dalka Turkigu uu yahay saaxiib weyn oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qaar ka mid ah la taliyaasha xafiiska wasiirka.